السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لا قالك وحرن جلكيك منيزة ميلو البادون كجوكتان إنا يوعف ما تقتان رجينا فضنا هديتي مركو غوريس أجلكيك سوبو قنيسد وحان كاعد سنة سبسكرايب سارتو قنبل الكنا آفورتو سي فيديو والبان سوقليو كوك سودا عما باو نقطو daawadaha ugu horeeya aad iyo aad u mahadsantiin idin leeyahay sida wanaagsan mar walba ila socotaan walaalaha cusub iyo walaalihii hore la joogi jiraba soo dhawaada muuqaalka daawatay fadlan haka ilaawin inaad like-ta saarto asxaabtaadana ala share gareyso si asxaab qurux badan oo sidiin oo kale ay channelka ugu soo biiraan aad iyo aad u mahadsantiin idin leeyahay isku soo laabasho wacan muddo kala maqneen 4 maalmood wax video ma soo gelinin maalmahan xooga aad iyo aad biis u noqday ilmiyan iskuulka iyo bilaaway adeegoodii waxa ku dhax kala habeeskoodii ilaa subhanahu wa ta'ala hanoo dhaaf caruurta hana noo xifdiya leeyahay maanta sniin way maanta kala baxeen marka insha Allah waxa rajeynaa wixii ka dambeeyo in videoyadeen ay caadi u soo gali doonaan haduu Ilaahay yiraahdo channelka idinkana waxa rajeynaa inay garab istaagtaan oo commentiga waxa ku dhahay like-ta subscribe-ta share-ta intaba aadan iga xakaranina oo ay ku garab istaagtaan oo ay ku dhiirigelisaan aad iyo aad u mahadsantiin idin leeyahay maanta waxa idin wada qiso gabar walaashay ay ku dhacday qisadeeda dhagaxa hadii xitaa looga sheekeeyo wallahi oo bilaa oo talaa oo ilmeena dhagaxa waayo ku dhahay hadii looga sheekeeyo mana fiicno dhibaato horto in qof u geystid horto ma fiicno gabadhan oo qisada ka sheekeynaysa ma ahan qofta dhibta ay ku dhacday waa qof kale waa qofka ay ku dhacday 10 sanadood cunug caloosheeda ku jiray 10kaas sanadood cunug caloosheeda ku jira ma ahay dhibaatooyin kasi argagax badan ayaa gabadhii soo gaaray sababtay u soo gaareen iyo ugu dambeyn sida markaas ay xal ku heshay muuqaalka ku daawada insha Allah marka dhameystiin ra'yigiina hoos noogu reeba gabadha abaay waxay leedahay aniga waxa ahaayay dhahday gabar xaasa oo marwo ah waxa ay qaba ay leedahay wiil markaas eedadee dhashay waxa ahaynay tir wiilkan ilma abti ilma eeda ayaa ahaynay tir eedadee ayaa ila jeclaatay wiilkeeda in ay guuriso aabaheena kama diidinay tir sidii ayaa aniga iyo wiilkana isqabno isku guursanay tir eedadeena waxay ahayd tir qof markaas يعني حاجة دقالها يعني آتي وهو سياني أهايين نينكي وحي ترى قف وحبرتو أهايين هذي لكيس وحبرشديسي وحوا وقب سنواي وشقوا كواي ترى بدنا شقوين كينا صومالي وحي نقطي تري إن قرب يقبيل يأقون إن لسكسينا قف كهدي أتقانت أما أقونا أولادا أما قو قبيلي هاي إن شقدو هلا لكيس hadduusan yani ku qabiil ahayn si walba uu wax u yaqaano laga mayaaba in uu shaqo helay tiri ilaa ay dad yani farqo tiris ah oo boqolkiiba hal oo nasiibkooda uu saacido laga yaabaa ay tiri waxay dhahday markii iskuursanay oo reer aan noqonay waxay dhahday noloshii xoogaa waxay tiri aniga waa xamil waaye dhahday gabadhii waxa bilaabay tiri ina wax un isbedel wax ina sameeyo kadib waxaan sameeyay tiri in markaas suuqa maxay ahayd suuqyada markaas xaafada ama magaalada aad deganaa mid kamid ah in markaas meel yar ka sameysto oo yani boosas waa la ijaartaa boos kamid ah ina ijaarto booskaas waxaan sameey jiray tiri waxaan ku gadi jiray galeyda in qamadiga maxay ahayd مسيرته يعني وحيابها لا عبرايو أو مذالك يمسكي وحيابها سلوك لا عبرايو أيها وحي هي تري أنكو قدي جري سوقا سيتري وحن كلو قدي جري تري قلي أو مركاسي انت لشيدو كدي بنحانين لغا ديغايو أو صورة أهانا أو قدي جري تري وحن كلو قدي جري تري عجينك أساقنا سيدو كالانتو حي تري وان قدي جري تري سوقا مركي آن كسو دمادي تري حافظ مركي آن إمادو عجينك وحي تري أو سوقا آن كسو قادو intaas ogama tagi jirnay tir xaafadaha ayaa u wareejin jiray oo aan ka gadi jiray ay tir dad qaarna yani xaafadaha iigu imaadaan dadka qaarna ana guryahooda ugu geyn jiray tir si markaas aan u helo lacag markaas maciishad ama maxay ahayd ka dhigano wax ku noolaano gabadhu waxay tir markaan caruura ay dhashteen hooyaan noqday tir caruurteedii waxay dhahday ma sha Allah wiilal iyo gabdho Ilaahay wuu isiiyay dhahday
nolosheediina waxay tiri sidaas dhibaatada badan leh ayaan kusoo noolaayay tiri aan kusoo wadayay tiri waxaan ahaynay tiri dad markaasi iska biilanayo wixii suuqaasi kasoo baxo odagayga waxay tiri wuu isku dayay tiri in uu raadiyo shaqo waa nin wax soo bartay tiri xitaa iskuul uu raadiyay iskuulada maxay ahayto machadyada yani iskuulada oo waxa ka wada oo nidaamiga ah shaqo uu ka raadsaday waa uu ka waayay wuxuu isku dayay tiri in markaas xitaa uu yani bareefad xitaa oo shaqo uu ka helo bareefadka yani ingiriiska luqadaha oo qaaska ah lagu dhigayo ma ahan sida iskuulada kale oo waaweyn oo luqadaha dhan lagu dhigayo yani carabiga ingiriiska yani waxaas lagu dhigayo ma ahan kan ingiriis oo kaleento aa lagu dhigaa baranjiga saasaa lahaa baranji maheno saasaa maleyna inay tahay bas gabadhi waxay tiri na ay tiri wuu waayay tiri xoogaa marka waxaan arkay tiri in oo isla hadli rabo oo yani fikirka badan maadaama uu yahay tir qof yani mas'uul ah oo hooyadiisii aabihiisii iyo maxay ahayd familkiya dhex deganahay tir anaga gurigaas markaas aad deganaana waxa iska lahaayay tir yani hooyadiisii aabihiis ayaa iska lahaayeen tir guriga ayaga lahaa waxaan guriga deganaayeen tir markaas wiil asaga la dhashtay gabar uu qabo walaalihiis oo gabdhana guriga waa ay joogeenay tiri mid waxay sameyn jirtay tiri cilaanay saari jirtay cilaankana badana lama heli jirnay dhahday mararka qaar oo ciidaha ay soo dhow yihiin ama maxay ahayd marmar oo aroos oo kaleento oo yani gabdha ay aadayaan oo kale inay u imaadaan ay ka saartaan kaliya aheeday tiri xitaa xilligaas waxay dhahday ma jirinay tiri qof aroos oo kale inuu u yimaado uu dhaho ii sharax qoftaan waa aroosad ma jirnay tiri qof yani banaanka u baxsan ma ahayn kaliya waxay ku koobneeday tiri xaafadda markaas aad deganahay gabdhaha markaasi degan ayay u saarsaari jirtay waxa yaryarka ah kasoo galayna markaas gabadho iska ogtihiin ayadaba kama badnabo waxa kasoo galayay tiri lacagtii gabadhi waxay tiri habeen iyo maalin ma fadhiisan jirnay tiri anigoo umul ah anigoo xanuunsan anigoo noojinayo waxay dhahday waa is adkeyn jiray tiri waxa is dhigi jirtay yaa u jiifanaysaa yaa u seexanaysaa markii dambe waxay tiri xoogaa yar oo maxay ahayto lacag wax yar oo yani waxba ahayn oo beebeen ah yani inay ii aruuraysaa arkay tiri kadib waxaan bilaabay tiri inaa ayuuta galo ayuutadii markii aan galayay tiri yani markii la gaaray inaan qaato aniga lugteedii ayuuto waxaa la hakbad ama ayuuto يعني lacagta markaas inta dad group oo kale isku dardarsadaan bil ama laba bil wixii lagu heshiiyay kadib yani qof uu qaadanay taasa laha ayuuto gabadhu waxay dhahday taasa galay dhahday markii aan galay tir dhowr mar markii aan qaatay oo lacagtii isku aruuriyay odigayga waxaan ku dhahay tiri waxaan rabaa inaa sameysid yani gurigeen waxay tiri qol kamid ah waxaan dhahay tiri qolkaas kuraas soo dhigo sabuurad soo dhigo hagaagso ee qurxiso kadibna ilmaha xaafadda degan ma aragtay dheh kaale waxa idin baraa yani waalidiinta dadka yani aan lacagta badan aan iskuulaadku awoodi karin oo kaleento ku bilaaway tiri inta adigana laga baranayo oo qof waxa ka noqonaysa yani dadkii yaqaanaan ama la isku soo sheego waxbarashadaadii dadka hadii ay ka helaan yani qofba qof uu sii gudbina laga yaabay tiri markaas in qof weyn ama meeshaadii ay sii weynaato fikirkaas ka waran dhahday wuxuu dhahay aad iyo aad u fiican yahay waxaa la bilaabay markaas qolkii guriga ka tirsanaa in markaas albaabkiisi banaanka loo soo jibiyo يعني قولك جذوه كيالي لكن سبنانك لو سو جبيه قولكان بس مركب بنانك الباب كيس لو سو جبيه قولك ولا عديه ولا رينجيه يعني رينجيه لمريه كراسمان على كان حلياس يعني كراسمان كسعجري وتقانين ميسي روداري كرسي روداري أو أفرق في 100 استحقف يكون فدي سنة يعني واي gabadhii waxay u soo gaday sabuurada la soo gad sabuurada waa la keenay jeestooyin waxyaabo dhan waa la keenay ma sha Allah kadibna dadkii markaas xaafadda isla wada deganaayeen waxay ku tir ninkeygii wuxuu bilaabay inuu ilmihii wax baro qofkii raba inuu ilmihiisa yani wax u barto aanan awoodin dhaqaalaha badan ee uu ku bixinayo ha keensado si yani xitaa hadduu awoodo xitaa intuu cunug yar ee beeskiisa inta ku soo dhisto markii uu soo dhisto kadib xitaa iskuulaadka kale waa uu bedelan karaa bas dhowr qof oo markaas yani dariska ayaga ugu dhadhawaa ee xaafadda deganaa ku bilowdeen ilmahoodii luqadda Soomaaliga oo markaas ilmaha baraayay xisaabtu baraayay ilmaha si u kala weyn yihiin yani u kala maskax furan yihiin oo yani ugu kala dhigayay ahayd bas
meeshii waxaa bilaabatay in xoogaa xaafadii waxaa ku dhahay nusqo ilmahoodii ay soo galayaan maasha Allah wuxuu noqdaa ku dhahay ninkii gabadha qabay wiilkii yani gabadha qabay in markaas ilaahay yani uu wixii faraj yani u furo wax walba horta sababay leeyihiin sababtaas maanta yani waxaa lahayd gabadha xaaskiisa ahayd ayada ayaa dadaalkeedii xoolihii ay soo shaqaysay dhididkeedii habeen iyo maalin ayadoo umula ayadoo maxay ahayd xanuunsan ay soo shaqayn jirtay qayb ka mid ah ayay gelisay ninkan bas waxaa bilaabatay markaan maasha Allah in macalinkii la isku sheega oo la dhahay waaw macalinkaas waxaa ku dhahay ilmaha si fiican oo wax u baraa ilmaha saan oo yeela cunugeyga iskuulkiisa oo dhigtaa marka waxaa badatay in macalinkii magaciisii meelo dheer uu gaaro kadib waxay dhahday ka waramay tiri in meeshaan ka guuriso ama maxay ahayto maalmaha weekendiga oo kale saacada kamid ah ku bartid ilmaha oo yaryarka ah asameysiday tiri yani laamiga يعني meelaha oo laamiga aad iyo aad u bulsho badan tahay iskuul hadii aad ka furatidna aad iyo aad maxay ahayto dad badan uga helaysa markaas waxay tiri maadaama adigii hadda lagu bartay meeshan ay xaafad tahay la soo galay waxa fiican meel yani oo maxay ahayto oo central in markaas iskuulkii loo wareejiyo wiilkii gabadha qabo wuxuu ku dhahay waayahay waa arin fiican oo dhahay aad iyo aad aan uga helay sidii ayay ku soo baxeen oo waxay soo aadeen markaas meel ku tiilay laamiga geeskiisa meeshii ayay qolka ijaarteen meeshaas yani waxay ahayd meel markaas ayadana biibitooyin maxay maqaayado dukaamo carwooyin maxay ahayto iskuulo maxay ahayto oo nidaamiye ay ka dhow yihiin oo maxay meel shidaalka yani baabuurta xitaa shidaalka ay ka qaataan boosteeje u dhowdahay oo VIP ahayd meesha markaas uu ka helay بس ماشي markii uu ka helay arday aad iyo aad u badan aan ku dhahay xaafadii waxa ku dhahay macalinku wuxuu noqday la dhahay ma sha Allah macalina inaba caadi ahayn cunugii oo maxay ahayto wax waa bara oo dhahan cunugaas waxa la wala isku waalda wax barashadiisa okay marka wiilkii sidii Ilaahay subhanahu wa ta'ala wax uu kala furfuraa ku dhahay ma sha Allah tabarakallah gabadhii waxay sameysay saas ay kuma joogsanay ahayd waxay isdhahday maadaama suuqi yani xoogaa uuna ka dheer yahay isku sii dayay in xoogaa wixii aad sii weynaysatiin qolkii markaas uu ka tagay wiilkii wuxuu bilaabay in yani uu burburiyo maadaama shaqadiisii xag ay u badatay ardaydii wixii oo dhan xag ay u badatay waxay sameysay qolkii markaas iskuulka ilmaha loogu dhigayay in markaas alaaba yani iskafaalayaal yani ay ku rakibto oo cuntooyinka la saaro waxay sameysay burka bariiska saliida sokorta waxa ku dhahay oomada saabuunta wax walbo maxay ahayto saliida gaaska yani wax walbo oo markaas loo baahan yahay gabadhii in ay keento meeshii ay dhahdo xaafadii yani si ay u bartaa dadka bas sidii ka dhigtay ayada markaas wax ceeriinay gadeysay waxay aragtay in xaafadii ma sha Allah la bartay oo laga adeeganayo oo maxay to adeegi laga qaadanayo oo la isku sheegayo xaafadaha xoogaa yani u jijiray xitaa looga imaanayo dadka suuqyada ka wahsanayo kala ama maxay to dhirkiisa nacayo kala inay imaadaan oo ay gabadhan ka adeegtaan bas markay aragtay waxay dhahday waxa sameysaa xitaa hilibka iyo waxyaabahaasna soo qaaday tiri meeshan la ku gad بس gabadhii wixii oo dhan meeshay keentay waxay dhahday marka maamada oo sadohdeed oo eedadeed ah maadaama adiga guriga aad joogtay tiri adiga si gadgaday tiri aniga meesha ashqadeedii ka soo bilaabay marnaba waxay tiri kama haraayay tiri waa sii wada marka maamada sii gadi jirtay ahayd tan xaafada gabadhaana banaanka wiilkiina ma sha Allah ilaaha oo si kala kicii ka harooda xitaa shaqada weydiido waxay dhahday shaqadan waxay tiri mid lagu jisaaray ma ahanay tiri suuqana waxay ka noqotay qof la yaqaan oo la ixtiraamo oo marwo oo ma sha Allah oo dadka aad iyo aad u wada jecel yihiin ay gabadhii ka noqotay arag bas maalmaha kamid Ilaahay subhanahu wa ta'ala horta ma aqaano rageena qaar wixii ay saas u wada yihiin يعني gabdhaha ay qabaan ay saas u yeelayaan gabadhu waxay tiri maalmaha kamid ayaa waxay dhahday odageygii wuxuu dhahay waxa rabaa inaa guursado xaas labaad hadda waxay tiri aniga waxa u hayay tiri wiilal iyo gabdho inta waa u dhalay tiri maanta lama dhahayo ilma la'aana heeso ilma ma heesto ama caruur ma heesto lama dhahayo tiri
dhibaatadii iyo rafaadkii iyo noloshii xanuunka badneed aan soo marnayne aad iyo aaday u adkeeday tiri waxaana dhici doonayay tiri waxyaabo dhibaato aad iyo aad u badan cunugaas yarka ah markii uu ku dhex dhaco saliidda haddaba insha allah way dheeraatay qisada waxaa rajeynaa qaybta dambe aad iyo aad maxay ahayd u xanuun badan tahay waxaan rajeynaa inaan inta kusoo gabagabeeyo muuqaalka haddaa ka hesheen like saara asxaabtiina la share garay haddaa nagu cusubtaan subscribe noo saar intaan videoga mid lamid ah ku kulmi doonana wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu